Soomaaliya waxa ay soo martay xilli wax walba raqiis ay ahaayeen dhaqaalaha wadankuna uu aad u sameeyay wax badan oo ka mid ah noloshuna dawladdu waxa ay shacabku ku siin jirtay si bilaash oo free ah xilligaasuna ma jirin wax colaad iyo qalalaasa ah waxa si fudud dhalinyaradu ay ku heli jireen shaqooyin dadkuna waxay aad ugu mashquulsanaan jireen wax soo saarka dalka dawladdu waxa ay ka faa'iiday jirtay marka laga soo tago canshuurta waxyaabaha dibadda ay u dhoofinayso dhaqaalaha wadanka soo galayna wuxuu ahaa mid aad u sareeya qoyska Soomaaliga waxa bishii oo dhan ku filneed 30 ilaa 50 shilin ama in ka siyan haddii si kale loo dhaho luuqadda maanta waxa wax lagu kala iibsan jiray sentiyaalo way adkaan jirtay in shilin suuqa loo isticmaalo waxa suurtagal ah in adeega qadada ee guriga oo dhan ay ku baxdo hal ama laba kumi lacagta birta ah guriyaashuna qiimo ahaan waxay ahayn xilligaasu 200 oo shilin ilaa 500 oo shilin inuu dhaxaysa xilligaasi gabadha ugu qaalisan meherkeedu wuxuu ahaa 1000 shilin ee maanta aan naqaano qofka haystana 1000 shilin ama 2000 oo shilin waxa uu ahaa qof maalqabeen taajir ah goobaha waxbarashada iyo buugaagtu waxay ahaayeen kuwo bilaash dawladda ay ku bixiso xilligaasuna Soomaalidu waxay ahaayeen kuwo isku duuban oo libaaxyada Afrika ah wadamada kale ee Afrikana waxay u diri jireen fariimooyin guwaaba ah si aan u bilowno muuqaalkeenuna haddii aad ka heshay muuqaalada noocan oo kale ee wacyigelinta la aksar muuqaalkeena mahadsanid Soomaaliya xilligaas waxa ay lahayd ilooyin dhaqaale wax soo saar leh ilooyinka dhaqaalaha ee dalku lahaana waxa ka mid ahaa warshadooyinka warshada kalluunka ee Laasqoray warshada hilibka ee Kismaayo warshada dharka ee Balcad warshada caanaha ee Xamar warshada sonkorta ee Jowhar teebalkani ku muuqda waa riboodka bangiga adduunka laga soo bilaabo 1970 ilaa 1986 Soomaaliya waxyaabihii ay soo saartay wax soo saarkan ee dawladda Soomaaliya waxay kaalin weyn ka qayb qaadatay in wax walba raqiis ay ahaadaan sida uu qoray qoraal Falastiin maqaal BBC-du ay tarjumtay waxa ugu muhiimsanaa uu yiri inta aanan Sacuudiga laga helin petroolka Sacuudiga wuxuu ahaa dal faqiir ah dadkiisuna waxa ay ku noolaayeen timir iyo caano oo kaliya waxaana taariikhda ku cad in abaar ballaaran ay ku dhafatay Sacuudiga sanadkii 1909 waxa ayna dadka Sacuudiyiinta cuni jireen caleenta si ay noloshooda u badbaadiyaan xilligaasi Soomaaliya aad ay qani u ahayd oo xitaa waxa la sheegaa in qofka neef inuu qasho beerka kaliya inuu ka cuni jiray inta kalena uu iska tuuran jiray taariikhdu waxa ay qoraysaa sida qoraagu uu sheegay in culimada Soomaaliyeed xilligaas ay fatwoodeen in xoolo sadaqa ah loo diro dalka Sacuudiga ganacsatada Soomaaliyeedna waxay markii bilaabeen inay halkaas u dhoofiyaan xoolo nool raashin iyo waxyaabo kale waxa uu qoraagu ku sii daray in taariikhdani ay tahay mid aad loo qariyo Soomaaliya waxa ay xilligaasi gaarsiisneed in awoodeeda militari ay tuso dawladaha kale ee dunida xilligaasuna lacagta Soomaaliga ee la isticmaali jiray waxa ay ahayd mid aad u qiimo badan amniga dalka ka jira dantiisu waxa suurtagal ahayd in habeenkii degmo ilaa degmo gobol iyo gobol in loo kala safro waxa hal mar isbedelay systemkii oo dhan burbur xoog badan ayaa ku dhacay dhaqaalaha wadanka gabi ahaanba waxa isbedelay siyaasadda dalka waxa soo ifbaxay jabhadooyin waxa la burburiyay meel walba ee dawladda Fariisin waa u doorataa qof kalsoonidaada iyo qofku waa inuu leeyahay qorigiisa inuu leeyahay isla markaana ciidamada amniga ee dalkuna qof walba oo ka mid ah waxa uu raacay familigiisa xaaladdu waxay isku badashay qabiiladuna siday u kala tiro badan yihiin ay degmooyinka iyo xarumaha dawladda ay ula wareegeen Soomaaliya aan u duceeyno fanta ilaahay Soomaaliya qabilka ka mudoween
إلهي وسومالي إسرع سيه آمين إلهي ومدني برحمتك أنت رمتنا لا ونعرسه أنا إلهي أنا نعرسه buugga ay qortay UNDP Soomaaliya sanadka 2003 waxa uu leeyahay sidan waxaa bunbunay xarumihii dawladda dhaqaalaha iyo waxa la boobay dhaqaalihii bulshadu ay lahayd tanina shacabka Soomaaliyeed waxay u keentay kalsooni daro ee xagga dawladda ah dadkiina waxa ay noqdeen kuwa amni aanan haysan oo bilaahoy ah laga soo bilaabo 1998 bunbunkii dawladda iyo u kala qaybsanaanta xisbiyada waxa ay dhalisay in degmo iyo magaalo walba ay yeelato maamul gooni ah iyaga oo buuxinaya kaalintii dawladnimada ee meesha ka baxday xilligani Soomaaliya kama jirin wax madaxweyne ah wadanka oo dhan wuxuu ahaa mid fowdo oo bilaa dawlad ah waxa la dhacay qof walba ee laga awood badan yahay waxaana la dilay cid walba ee aanan haysan waxa isku difaacdo waxa la bililqaystay hantidii dawladda waxa xukuumaha dawladda loo bedelay guryaal caadi oo la degan yahay xaaladdu marka ay heerkani gaartay dadku waxay u kala baxeen dhowr qaybood kuwa wadanka isaga baxa oo ka samran xoolahooda iyo kuwa wadooyinka fadhiista qof walba ee Soomaaliya wax uu haysta ka dhaca xaaladani kawska ay dalka ka jirtay danteedu waxay keentay dhaqaalaha wadanka oo dhan inuu burburo waxa gabi ahaanba istaagay wax soo saarka dalka maadaama fowdo amni ay jirto tanina waxa ay sabab u noqotay in shilinkii la isticmaali jiray qiimo dhac xoog badan uu ku imaado maadaama bangigii dhexe ee dawladda la jabsaday lacagta shilinku marka ay qiimo dhacday waxa shacabka ku adkaatay inay wax soo iibsadaan dhalinyaraduna waxa soo wajahay shaqo la'aan xoog badan wadanka maadaama dawlad aysan ka jirin ma lahayn meel shaqo loo doonto tanina waxay albaab u furtay markii ugu horeysay in dhalinyaradu wadamo shisheeye nolol ay ka raadiyaan kuwa tahriiba iyo kuwa qaxooti iska fara ayay dadkii u kala baxeen xaaladda dhaqaalaha ee dalkuna aad ay u sii xumaanaysay marka ka sii dambaysa maadaama lacagta shilinka ay qiimo dhacday waxa adkaatay in ganacsigii uu kala socdo wax walba ee wax lagu iibsanayna qiimahoodu waxa ay ka bilaabanayeen 1000 shilin oo aanan weligeed la isticmaali jirin maanta 1000 shilin ee Soomaaliga heerka qiimo dhiciisu uu gaarsiisan yahay suuragal kuma aha inaad wax ku iibsato wax ka badan hal xabo oo nacnac waliba nanacyadii hore si aad lacagta Soomaaliga wax ugu iibsato waxaad ku qasban tahay kumanaan kun oo shilin adiga oo haysta inaad wax ku iibsato qaankood kumanaanka kun ee shilin ayaa wax ku iibsan karin waxa qasab kugu noqonaysa milyan inaad adeegsato